أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق ومريان أحمد محمود وحان كسوغانا هاي جامعة بوساس قروة. جامعة waxay qabanaysaa asbuuca hidaha iyo dhaqanka oo ay si sanad la u qabato sanadkiiba hal mar la qabto. waxaan ku suganahay miiska ay saaran yihiin alaabta hidaha iyo dhaqanka qayb kamid ah. waxaan sharaxi doonaa alaabtan qayb kamid ah. haddaan ku bilaabo bahalkan waxa la dhahaa magaciisa durbaan ama waxa la dhahaa durbaan baa la dhahaa waxa loo isticmaalaa in lagu tunto meelaha maxay xafladuhu ka jiraan aroosyada jandeerta in lagu tumo si jiib qurux badan iyo maxay ciyaar qurux badan loo dheelo bahalkan magaciisa waxa la dhahaa gambise gambisahan waxa loo adeegsadaa in lagu gurto alaabta sida alaabta jajabaysa oo kale bakeerida talaagadaha dhamaan alaabtaas waxa loo adeegsadaa inay ku gurtaan inta meel la suro bahalka isaga waxa loo yaqaanaa saabkan waxa lagu ridaa joogaga waxa lagu ridaa kalooradaha hilibka lagu guro si ay difaac ugu noqoto ama shay jabay haduu yahay oo kale ama shay qalin oo laga baqay inuu diismo oo kale waana lagu qaado halkaas lagu ridaa bahashan waxa loo yaqaanaa wadaantan waxa biyaha laga soo dhuraa ceelasha kuwa dheedheer iyo kuwa gaagaaban waxa lagu waraabiyaa xoolaha dadka ruuxooda biyo ku soo dhaansadaan biyaha adugu lagu soo qaadaa ceelasha ku jira bahalkan waxa loo yaqaanaa magaciisa xaarinka waxa loo adeegsadaa waxa lagu guraa cuntada wadaniga kuwa qalaylka ah sida badarka haruurka digirta si loo kala saaro maadaama wixii ay dhir ka imaadeen oo qashin la socdo oo baal la socdo in lagu kala haadiyo oo loo kala saaro baal iyo cunto bahasha waxa loo yaqaanaa koorta waxa loo adeegsadaa waxa lagu xiraa geela dhawaqaas ay leedahay wuxuu ka caawinayaa dadka xoolo dhaqatada in ay garanayaan geelu jihadu ka jiro in uu haduu geelu lumo oo kale habeen haday tahay oo kale geelu meeshu uu jihada uu jiro ay garanayaan aad bay ugu fududaanaysaa bahashan waxa loo yaqaanaa madanada waxa loo adeegsadaa waxa lagu suntaa xoolo kasta dadku waxay sameystaan xoolaha way calaamadsadaan si aad xooluhu markay ka lumaan oo ka halaabaan oo kale aad xoolahaaga markiiba aad u heshid waxa lagu suntaa xoolaha dabka la galiyaa bahalkan waxa loo yaqaanaa qudo waxaas kale loo yaqaanaa fandhaal qudada ama fandhaalka waxa loo adeegsadaa booskeeda hadda anaga waxa noogu jirta qaado sidoo kale markii caanaha la lulo ay haanta ku jiraan oo subaga burcadka ku dhex jiro waa subaga waa laga soo guraa cuntadana waa lagu guraa maxay heedanay adugu waxa loo adeegsadaa qaabka qaadada kale bahashan waxa la dhahaa salad waxay ku qaataan maamooyinku alaabaha yaryar marka ay maxay heedanay reerku guuro oo kale waxay ku ritaan qalabka yaryar ay ka baqayaan inuu ka lumo oo kale bay ku gurtaan bahashan waxa loo yaqaanaa waa weeso qofku marka uu xoolaha raacayo marka uu maxay heedanay si han aadayo kale waxa uu ku shubanayaa biyaha weesada waxa ku shubanayaa biyaha cabitaanka intaba bahalkan isaga waxa loo yaqaanaa gaawe ama waxa loo yaqaanaa harubgaal gaawaha ama harubgaalka waxa loo isticmaalaa in lagu maalo geela baa lagu lisaa oo lagu maalaa bahashan waxa loo yaqaanaa gudinta waxa loo adeegsadaa in maadaama ay dadka xoolo dhaqatada inta badan xoolahooda ay dhir ku maxay heedanay ku oodayaan xiriyaha ku oodanayaan ardayada ku oodanayaan inay ku soo jartaan ooda ay xiriyaha iyo ardayada ay ku oodanayaan waxa la dhahaa hangoonka waxa loo isticmaalaa markii ooda la jaro ama dhirta la jaro in lagu soo jiijiido laba shaqo qabtaa in ooda markii la jaray lagu soo jiijiido iyo marka ama ardayga ama xirada la oodayo saas macnaheedu lagu shaceeyo si ay isugu dhagto bahashan waxa loo yaqaanaa qudufkan waxa loo isticmaalaa waxa lagu gurtaa alaabta waa kaydiye alaabta maamooyinku ku ritaan weelasha yaryar bay ku gurtaan adigu wuxuu u yahay alaab bahal kaydiye alaabta ay ku gurtaan tan waxa loo yaqaanaa dhiisha waxa lagu shubtaa caanaha waa lagu lisaa waa lagu cabaa inta waa loo isticmaalaa waa bahasha maamooyinka Soomaaliyeed baa sameeyay dhamaan qalabka halkan yaala waxa inta badan sameeyay warshad ma soo saarin cid kale ma soo saarin waxa sameeyay hooyooyin Soomaaliyeed iyo aabayaal Soomaaliyeed sidoo kale bahalkan waxa loo yaqaanaa weynbaarka waxa la suraa guriga dhag buu leeyahay guriga la suraa alaabta isagana lagu gurtaa waa boorso camal alaabta lagu gurtaa guriga taala bahalkan waxa loo yaqaanaa asaga sibraar ama waxa loo yaqaanaa xab waxa lagu qaataa caanaha waxa lagu qaataa biyaha waa shay sibraara xabna waa la dhahaa sida caadiga bahalkan aad u jeedaan lisin baa la dhahaa waxa lagu lisaa midiyaha si ay midida marka la afaynayo ama ay aflaan noqoto oo kale waxba ay jari weydo oo kale bahalkaana lagu qabtaa waa lagu lisaa
ayadana sidaa loo adeegsadaa bahalkan magaciisa waxa la dhahaa dusha waxa kaga sharaxan bahal la dhaho aleel waxa la dhahaa abxadkan isagana waxa loo isticmaalaa inta badan waxay ku gurtaaniin alaabta waliba alaabta caanka ku ah oo ay ku gurtaaniin waxa kamid ah alaabta kabaha maadaama dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ay kabahooda iyagu talan jireen alaabtooda iyagu samaysan jireen alaabta ay kabaha ku talanayaan waxooda agabkaas oo dhan bay ku gurtaaniin ayadana saasay u isticmaalaan waxa la dhahaa faaskan haday waxaan sharaxay isagoo macni way isku qaab eeg yihiin labada waxba lagu jira laakiin tii hore gudin bay ahayd kana faas baa la dhahaa shaqooyinka ay qabtaan way kala duwan yihiin kan waxa lagu jabsadaa qoryaha waxa lagu soo jaraa dhirta waaweyn oo kale laakiin taa oodda iyo waxyaalaha oodka lagu yaryar baa lagu jaraa halka waxa nooga muuqda kaba laga sameeyay sar geel baa laga sameeyay magacooda waxa la dhahaa cagaf waa kabihii dadkii hore oo Soomaalida ahaa ay samaysan jireen iyaga gacantooda ku samaysan jiray kabahaasayna gashan jireen kan magaciisa waxa la dhahaa babis waxa loo isticmaalaa in la isku babiyo xilliga kulaylaha sidoo kale xilliga qofka xanuunsan oo kale in isagana lagu babiyo cawbu ka samaysan yahay tan waa haan baa la dhahaa waxa loo isticmaalaa in caanaha lagu lulo xilliga barwaaqada ah reer xoolo dhaqatadu waxay sameeyaan ama reer miyigu in ay sameeyaan subaga marka caanaha laga sameeyo tan baa lagu shubaa waa loo heesaa haanay bullooy iibax geel jira ku qoraansay geed dheer laga soo lul laba qaalin kula buubtay laba qaar u soo kala go heesahaas iyo heeso kale badan baa loo qaadaa marka caanaha la lulo